السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داودياش قيمة بدل جمعة وناكسن صدق كلام مالي وناكسن كونسو دواد برنامج كنا ورجيس رو بوعان صنع وانا سمينا قد بدي سبورتس ودن بيمان تباب ريسك إنجليز كشيكوين حسب بدنا سهرم إسبين سلمت قوة اليانية فوكس كأنت بدنا حال سهرة شيكوين كترني كسمينا السوق ما دام كوحاء ودان دقائق عن عادي هنسل سكوه بيا بش أغوستنا قيبه هذا دمهورية لذا بالله بنايا شيكوين كي وال كاب كواسو إلا هذين سوقا وسوق والبقول سديتن بقولي كنتن لو wax kale ma wajiro lacab saqiir dhan waa iska dhaaf marka suuqa dabdi holac waa sheekooyinka training ka sameynaa soo qaadanina wararkii xal ugu dambeeyay transfer ka waxyaabihi ka soo kordhay saaxiibayaal ee soo dhawaada xasuusina diyaatay saaxiib nagu cusub fadlan channelka subscribe inoo saar aqyaarta joogtada waxina muuqaalka noo la gareeya saaxiibayaal intaan guda galin sheekooyinka suuqa iyo transferka maanta ay xasuusiyo ciyaaro saxiitan ma jiraan Barca kale kulan tijaabi ciyaaraysa Manchester United kulan tijaabi ciyaareen labadaas kulan isla eegana waqtiga ay soo galeen sidoo kale application kan wadaag TV موجانين مركز تو برنامج كورجيس أن صادي كومنتي كوادا كقبته بينك أي كدك سنكرتها لوذا اللينك أب ستوري بلاي ستور عيارها اسم مانشستر إيمان تبارشون عيارنا وكداوان كرتها مركز أسلا إجنو ساعبيال كل ماذا حسوسين إن صوبته وحوات ترانسفير كنكم مشغول سنهاي برشلونة يلا عيار سكوح لو مع سي يوروب وهوريال كاركس الدحاد إسبين عيارته إسلا كاتلان لكادسم كلن كان وحب باللاوانا 3 PM صدح هذا قلب نما حلقة جاس كفركو باللاوانا ما أنت عصر ككهر بعيارته برش تجابك كواد أو فيلق يكوح يسجلايم دريس كيسكو تجابنا مركز koox Serie C ay la ciyaar doon lagu magacaabo CE Europa kulanka saddexda galabnimo bilaabana ciyaartaas markay dhamaato Manchester United safarkooda Scandinavia si wadan doonaan kooxda Rosenborg la ciyaarayaan kulankan wuxuu bilaabanaa 7 PM ama 7 fiidnimo xilliga Geeska Afrika kaarig ciyaartii hore kooxda Wrexham oo la ciyaar laga badshay hal gool eber oo gudaha Finland lagu ciyaar laakiin maanta wuxuu rabaa in ciyaartan ka dhacayso gudaha Norway kooxdiisa ay badiso 7 PM ay ciyaar doonaan kulamo kale way jiraan saaxiibayaal wixii kale oo ciyaar iska baashaan la ciyaar wixii ka soo kordhay arki doon laakiin labadaas kulana waaweyn ugu muhiimsan ka soo qaadanayna maanta oo jimca ciyaaraan idinkana dhacayna kadibta bal markaan Berberisk Ingiriiska aan ka bilaawno The Sun oo kale coverka weyn waxay siiyeen saaxiibayaal Arnold Chouameni iyo Rodri waxay dheen waa laba heshiis oo dabcan isku xindaaban wargeyska The Sun ciwaankaas haysto website-kana sidoo kale ciwaankaas haysto Manchester United Chouameni in muddo baad goob ugu jireen Real hadda waxay leeyihiin Chouameni waa idin diyaar ah ma qaadan kartiin waliba Jose Mourinho maamulka Real pressure caadi inuu saara wuxuu leeyahay Chouameni hal laga gado Rodri hal laga keeno Real Madrid 68 million pound adi ilaa 70 million oo baan ku rabaan Arnold Chouameni waa lacag ay Manchester United bixin karaan sababtoo United in 100 milyan la aad u darameen 60 70 80 way gadan karaan waliba Chouameni oo kale 80 milyan oo baan waxa isla iraade 70 milyan pound cheap way isla sida muuqato lacagtaas markay Real Madrid helaan ay dabcan soo qaadan doonaan ninka lagu magacaabo Rodri hadda hore uga ciyaaraya Man City fasax 3 isbuuc oo ku maqan yahay wax yar qalin oo dhabarkan looga sameeyay bil kale ku darsanaya marka Jose Mourinho ilaa wuxuu taagan yahay Rodri hal ikana inkastoo madaxweyne Perez uu ka cagajiiday keenista Rodri laakiin Jose haduu pressure soo saaro waxa qasab inuu Perez uu ka jawaabo sababta heshiisada uu Jose ku imaado kooxda waxa qayb ka ahaydba in asiga qofka uu dalbado loo keeno marka Rodri ayuu Jose ku dhagan yahay The Sun maanta Beberka waxay leeyihiin Chouameni Manchester United helaya Real lacagtaas cash marka helaan Man City ku wareejin doonaan si ay Rodri kaga soo qaataan City Rodri ma celin karaan hadii cilshaan xitaa waxa waa hal san uu ciyaaraa siisa kadib free uu kaga tagaya sababta ciyaaryahankan qandaraas ku inuu sameeyo mar rabo wuxuu rabaa dhinacaas Real Madrid inuu aado marka it's up to waxa waaye Florentino Perez iyo go'aanka uu gaaray laakiin maanta The Sun waxa warkooda waa cad yahay coverka ciwaankaas ay siiyeen qaybaha kale ee jaraa'idadana waxa ka muuqda yarkii Elliot Anderson oo imaaday kooxda Manchester City la soo bandhigay contract ilaa 2031 dabcan ka gadaala qalin ku duugay kadibna ku digtay Manchester United oo dheer hal boqorra ka jiraan aniga boqorrada Manchester aan doortan waa buluuga boqorro kale meesha ma jiraan oo leeyahay Manchester United marka yarkan United dhagaxaan iyo dagaal ku bilaabay Manchester United hore u diiday waxay dheen Elliot Anderson 80 milyan oo baan ka badan kama bixinayno marka inuu taas ka xun yahay laga yaabaa City ku soo biiray oo 116 milyan oo baan ku soo qaateen niman aan dagaal ku la jirin oo dagaal ku bilaab uu leeyahay magaalada hal boqorra joog hal koox guuleysto kooxdii saxdeedan doorto dhan waxa sidoo kale Beberis ka muuqda Arsenal iyo 70 milyan oo baan u gudbiyeen naadiga Newcastle si kaga soo qaataan Bruno Guimaraes waxay sugan doonaa jawaabta la siinaa kullee waxa la Gunners ninkan laga mixigo cid ku heysata male ayaga le kiiskan isku daahin karaan mahane waxay u badantay in Bruno Guimaraes soo qaadan doonaan 70 milyan pound sidoo kale waxa ka muuqda coveriska yarkii Garnacho Aston Villa ku biiray waxa la rajeynaa ugu dambeyntii inuu xasilo Man United oo ku xasili waayay Chelsea hal season kadib hore u soo ceedheen
marka this time wuxuu kusoo biiray sida muuqato naadiga dabcan Aston Villa ama ha ku qaateen kadibna toos u gadan karaan let's wait aan sugana bal sidoo kooxda ula qabsan karo waxaan soo qaadanaa qodobada kale ee sheekooyin kale Berbers Ingiriiska saaran qodobka ugu weyn ee gossip xitaa wali waxa haysta maanta Arlen Chouameni oo Real Madrid diyaar u tahay inay gadaan 26 jirkan si ay Manchester United kaga gadaan dan kadibna u soo qaataan Rodri dasan ayaa gossip ugu weyn Beberka ee saartay Ingiriiskan BBC ku soo celshan laakiin qodobo kale oo soo hoosgalay oo Manchester United taabanay qadka dhex United profiling-kooda aad u Mano Kona u calaamaysan Carlos Baleba u calaamaysan Sky Sport ee sheegtay waxa kale oo u calaamaysan xitaa Tyron Adams oo u ciyaar Bournemouth oo 27 jiro Amerikaan lagu heli karo 35 milyan oo pound saddexdaas ciyaartoy qad dhaxa u calaamaysan laakiin dream signing waa Chouameni oo hadda miiska u saaran haday Chouameni waayaan ayaa saddexdaas midkood soo qaadan doona marka qad dhaxa kale United waa soo kordhin la shaka sida muuqato dhinaca kale Arsenal maadaama Saliba uu dhaawac dheer u gal dhanka dhabarka laga qalayo laba ciyaartoy midkood soo qaadan doonaan John Stones oo 32 jir oo free ah caqabad wato xitaa mushaar fara badan oo rabaa iyo soo kale Ezri Konso asigana 28 jir oo ciyaar kooxda Aston Villa makaasha eedan oo la isweydiina marka labadaas ciyaartoy midkood Arsenal soo qaadan doonta sida Sky Sport ee soo daabacayso dhinaca kale Chelsea hogaanka waxay u qabteen loolanka loogu jiro kubad sameeyaha Bosniyaanka ee kooxda Liverpool oo ciyaar Karim Alajbavid lagu magacaabo 18 jir yarkan xitaa AC Milan koox badan rabeen laakiin hadda Blues hogaanka u qabatay dhinaca kale Chelsea iyo Crystal Palace waxa u socday wada xaajood gaar ah ku aadan Axel Disasi in Crystal Palace laga gado sida Telegraph ee soo daabacayso dhinaca kale Chelsea waxa lagu wadaa maanta gelinka dambe ama gelinka hore inay ku dhawaaqaan Maxence Saloka inay ka soo qaateen Crystal Palace 55 milyan oo pound iyo 5 milyan ee gadaal ka bixin doonaan ayay ku soo qaadan doonaan sida Romana xaqiijinay saxiixa marka anytime uu dhici kara xitaa markuu barnaamijku soo gaaro ayaa here we go dhici kartaa ciyaaryahankan Faransiiska Chelsea ku soo biiray sidoo kale qodobada ka kooban ee Blues waxa qayb ka ah xalan ka sheekaysanay wiilka Amerikaanka ee garbaha ka dul lagu magacaabo Benji Flowers ee kooxda FC Dallas ka soo qaateen way la heshiiyeen laakiin markuu 18 jir noqdo kooxda Blues imaan doona sida Athletic ay xaqiijinayso dhinaca kale ciyaaryahanka reer Ivory Coast Yan Diamonde oo bandhigan caadi ah sameeyay RB Leipzig ka tirsan waxa hadda loolankiis ku soo biiran Arsenal iyo Manchester City sida Sport Bill ee soo daabacay saaxiibayaal dhinaca kale Liverpool wiilkooda 20 jirka ee difaaca ka dheer lagu magacaabo Amara Nalo oo 19 jir laakiin xulka Ingiriiska 20 jirada u ciyaara yarkan ama waxay ku siinayaan kooxda HK Helsinki dhinacaas gudaha Finland hal season ku aada ama sida Athletic ee soo daabacayso dhinaca kale weeraryahanka Japanese ee Celtic u ciyaaro ee lagu magacaabo Dyson Mayida oo 28 jir asigana wuxuu ku soo biiraa Ipswich Town tijaabo caafimaad u mara maanta gelinka dambe la soo bandhiga 10 milyan pound ay ku qaateen Ipswich Town sida Sky Sport ee soo daabacayso dhinaca kale Jack Harrison oo 29 jir ah kaas oo ka tirsan Leeds United hadda dhinacaasi MLS ku aada kooxda New England Revolution oo ku biiraa sida The Athletic ee soo daabacayso dhinaca kale Everton ayaa xiiseynaysa ciyaaraanka lagu magacaabo Alistair Johnston oo 27 jir ah kaas oo Canadian ah kana tirsan Celtic kamid ah ciyaartoydii World Cup ka bandhig fiican ka sameeyay garabka midig ee difaaca ka ciyaaro waxayna u badantay inuu gali doono booska uu banay James Coleman sida Daily Record ee soo daabacayso dhinaca kale Aston Villa ayaa xiiseynaysa James Garner oo 25 jir ah qadka dhac kaga ciyaaro Everton sida haatan shabakada caanka ee Football Insider ee soo daabacayso dhinaca kale qodobkan toosan kaga sheekaysanayna Enzo Maresca maalmahan wuxuu aamusnaabo hal mar rabaa duula inuu ku soo qaado kooxda Blues wuxuuna ka rabaa Enzo Fernandez oo 25 jir ah iyo Malo Gusto oo 23 jir kooxdiisa hore labadaas oo ka calaamaystay Maresca maamulka City wuxuu dhigi doonaa lacag kasta lagu bixiyo sidii lagu keeni lahaa Enzo Fernandez iyo Malo Gusto hay Chelsea marka waa kaas ay Maresca idinka tagay oo hadda koox dhabarka idinka toogto seasonka meel fiican maraya City la kulmo kadib la raacaday xilli ciyaareedkii kooxda burbure wali idinka mahar xitaa hadii City magdhow laga qaaday 17 milyan oo pound hadda wuxuu taagan yahay Enzo iyo Malo Gusto haliga keeno Chelsea si kale aniga aan ku daawo waay mar nimankaas aan u baanahay haliga keeno sida code offside ee daabacaysa Chelsea ma fasaxaysaa who knows iyo Chelsea Ballastero kale soo qaateen Reece James u joogo Malo Gusto malakaasha sidoo kale dabcan Enzo kale qadkan dhaxan waa shaki markaan dhahay habeen hore mise xalame barnaamij transfer dhahay meeshan Alex Scott la doonayo qad dhaxo kale Chelsea keeni dhabto Rodgers iyo Palmer wax dhooban Enzo waxa isdhaa ma laga tashta marka sheekadaas anima u bogin afaaraha Chelsea ina galma jecel laakiin waxa isleeyahay Maresca haduu lacag haysto waa laga yaabaa in laga kaasho Enzo iyo Malo Gusto idinka ra'yigiina ka dhiibto waa sheekooyinka training ka sameynaya ee gudaha Ingiriiska dabcan Headlines ka haystaan waxa sidoo kale
Ciyaaryahanka qaybka Manchester United waxa la dabcan yarkii oo u ciyaari jiray kooxda Nottingham Forest ee Brazilianka Danilo iyo soo celinay inkastoo hadda kor flop uu ku noqday Premier League laakiin hadda dhinacaas gudaha Brazil uu ka ciyaaraa bandhig fiican uu sameeyna qadax iyo garbaha waa ka dheela marka Botafogo ka tirsan yahay baadi goob ay ugu jiraan Danilo inkastoo Danilo hadda wax badan aan ku arkin laga yaab inuu u kala kacdana waa laga yaab ciyaartooyda United ee rabto kamid yahay oo suuqa la soo daabacay idinkana ee ra'yiga ka dhibta waxa sidoo kale qodobada Beberiska ana saarneen la soo daabacay ganinka dambe qaybka yarkii Antonio Nusa oo Norway u ciyaaray madax cadeysto 22 jirka garbaha ka iimaanaya darbada badan Leipzig u ciyaaro hadda waxa isku haystaan Arsenal Spurs Gunners kan ciyaartooy garbaha ka duulan aad ugu baahan tahay inkastoo Roma xitaa qalqaal ugu jirto ninkan 60 milyan oo bond durtaalo marka dasan waxay leeyihiin labada kooxood ee waqooyiga London ka dhisan Arsenal Spurs Antonio Nusa isku haystaan sida ay maanta ay soo daabacay marka sheekooyinkaas training gudaha Ingiriiska sameynaya saxabiyaal idinkana ra'yigiina ay ka dhiibto marka dhinacaas gudaha Spain aadayna maxaa heelaan saaran soo bandhigistii Karim Adeyemi iyo waxa isku soo aaday dhaawaca dabcan Frank de Jong oo muddo dheer maqnaan doono macalinka Spain Luis de la Fuente oo koobka dhigila xarumaha Madrid ku soo wareegay AS Marco booqday bal Beberis ku xasaarna isla eegna maanta oo Jimcaha waxaan ku bilaabanaa jaraa'idada ka soo baxaan dhinacaas iyo Catalanka sababta waxa waa farxad iyo muruga ka jirto Sporting kale waxay dhaheen waxa la soo bandhigay Karim Adeyemi I am here for Flick halkan waxa uu imaado Hansi Flick dartiis waa macalin jeclahay Barcelona waligaan ku riyoon jiray Flickna aadan u jeclahay markuu wuxuu leeyahay fursadda ma isdhaafsin karam yarkan wala soo bandhigay Barca si rasmi ugu soo biiray timo weynahan dhinaca kale wuxuu ciyaaryahankan ka dhawaajiyay inuu sugi la la ciyaarista Lamine Yamal Rafinha xidigaha kooxda wax badan ka baran doona anigana wuxuu dhahay kooxda inaan caawiyo halkan u imaado maahane inaan Keds ka fadhiyo uma imaan marka Barcelona garbahooda waa shideen Anthony Gordon Karim Adeyemi Lamine Yamal Rafinha inta la gala kooxda marka seasonka dambe Europe hatta inay qabsanaan ka cabsanaan dan kadib waxay soo qaateen Frank de Jong waxay dhaheen dhaawaca dhanka jilibka soo gaar waa halis de Jong wuxuu sheegay in information dhaqaatiirta Hollandeeska ee siyan qaldan ee dhan waa ciyaari kartaa World Cup asoo dhaawac jilibka dareemay xanuunka ku sii ciyaaray haddana sida ay xaqiijinayaan Sport iyo Mundo Deportivo ninkan midida la saara waa la qalaya 5 bil 6 bil 7 bil markay ugu yarto maqnaan doona sida muuqato sidoo kale shabakada caanka markii la fiiriyo Mundo Deportivo waxay leeyihiin maqnaanshaha ama dabcan dhaawac dheer u galay yarkaas de Jong waxay Janis u tahay Mark Bernal oo la rabo inuu fursadiisa qaato si fiican u ciyaaro Pedri iyo Bernal qadka dhex qabsan doona maybe xitaa laga yaab ma ka soo in ciisho sababta 7 month ninka maqnaana markay ugu yartay macquul ma Bernal iyo dabcan Pedri kaliya kuma anfaca marka soo xitaa in la celiyo waa macquul sida Mundo Deportivo ay soo daabaceen isla sidoo kale Mundo waxay leeyihiin Karim Adeyemi oo 24 jir high flying kooxdan Flick darteed u imaada naadiga jecel wuxuu sugayaa seasonka inuu bilaawdo wuxuuna kamid yahay saxiyada dabcan Europe loogu baaday goobka badnaa hadda marka talent kale oo tayo wanaagsan ee Barca ee gacanta ku soo dhigan taas iswarsi mala waa muuqata calay taxal ina markii aan fiirino soo kale Mundo Deportivo waxay ka hadleen agaasinka kooxda Barcelona Deco iyo soo kale dabcan wakiilka Jorge Mendes waxay dhameen rabaan heshiiska Joao Cancelo heshiiska amaade joogto laga dhigay Al Hilal iyo Barcelona wada xajood fiican u socdo waxay u badantay in la dhameystiri doono sidoo kale xitaa waxay ka hadleen markii la fiirsho majalada caanka Mundo Deportivo yarka lagu magacaabo Karibo oo garbaha ka duulo kooxda Bournemouth ka tirsan ay Barcelona qalqaale u jiraan xitaa hadii xagaagan heli waayaan waxa uu calaamaysan xagaaga dam inay gacan ku soo dhigaan wiilkan tayada wanaagsan marka Karibo Barcelona profiling-kooda safkooda kaga jira marka bal aan sugano dhinacaas marka aadno Catalan Beberiska iyo sheekooyinka saaran maanta Luis de la Fuente heesto tababari Spain wuxuu imaaday xarunta Madrid markan uu tagay xarunta jaraa'id AS uu tagay AS oo kale markuu tago wuxuu dhahay they already asking me for 2020 if 2021 macnaha waxay dadka isi weydiinayaan koobka 2030 macallimo ka rabna kan ma noo keento oo Mareykan lagu ciyaaray saddex dal martigeliyeen koobka kale 2030 Spain iyo Portugal iyo Morocco martigelin doonaan saddexda kulan ugu horeysan dhinacaasi waxa lagu soo ciyaaraa South America Argentina iyo Uruguay iyo Peru miya adiga lagu ciyaari doonaan marka waxay dhayn koobka dambe oo gurigeena yaal macallin waxa ka rabnaa inuu difaacsigan xulinimada odaya ah 65 jir almost 69 jir noqonaa dadka waxay dhayn ma jirto waxa shacbiyada Madrid dhan waxay dhayn meel aadis malahan waxaan ka rabnaa koobka 2030 inuu gurigeena uu siyaalo meelna uu san aadin marka la soo hadii uu suura galayso dan kadib waxay soo qaateen shabakada caanka AS oo ay ka hadleen marka la fiir Jose Mourinho oo tababarka bariyaha dhan tijaabinaya farmasonka 4-3-3 oo maalmaha dhan tijaabinaya qaabkii hore oo Real Madrid u ciyaarsin jiray waa 4 difaac 3 dhexe
iyo 3 weerar ah waliba Arda Güler ayuu wuxuu arkaa inuu qaban karo shaqadii Mas'uud Ozil hadda ka hor u qaban jiray Madrid oo number 10 ka ahay oo kubadaha gaarsiin jiray ciyaartoyda garbaha iyo soo kala dabcan weerarka tooska marka Güler tijaabooyinkan uu ka ciyaarsiina booski Ozil haduu ka soo baxo it's perfect marka waa qorshaha Jose uu tababarka ku wada mar dhowna tijaabooyin uu ciyaar doona macalinkan saaka warqaban marka Jose Mourinho bal waxbuu karkarina kama Vinga xitaa lix uu ka ciyaarsiinaya Gonzalo Garcia weerar ka ciyaarsiinaya Jose wuxuu dhahay Gonzalo Garcia meel uu iga aaday meel uu sii jooga waxbuu Jose isku aadina marka bal aan sugana wixii ka soo bixin laakiin ciyaartoyda waaweyn badankooda fasax ku maqan yihiin maadaama World Cup ay ku soo daahin dhinaca hadii aan fadhino shabakada caanka ee lagu magacaabo saaxiibayaal Marca ayagana waxay cover ka siiyeen Luis de la Fuente macalinkan wuxuu dhahay farxadeedii ugu weyn iyo sharafteedii ugu weyn waxay tahay in shacab weynaha Spain oo faraxsan aan arko dhahay sababtoo aniga farxadeedu waxa ka muhiimsan farxadda dalkayga iyo dadkayga marka wuxuu dhahay marba haddaan reer Spain farxad galiyo achievement kale kubadda cagta iga dhiman ma jirto dhahay waa gaaro heerkii ugu sareeyo kubadda cagta in dhammaan all Spanish people aan farxad galiyo dhahay taas iga badan oo macalinkan sida uu ka dhawaajiyay sidoo kale shabakada caanka ee Marca waxay soo qaateen qodob ay kaga hadlayaan labadii ciyaartooy kale ahaa Fabian Ruiz iyo ninkii Gavi ah waxay ku laabteen tuulada ay ka soo jeedaan lagu magacaabo Los Palacios Falafranca dhinacaasi adi tuulo fogo Spain tagan asal ahaan meesha ka soo jeedaan waa tuulo dhaqankeeda dabcan uu yahay qofkii tago oo dabcan guul gaaro waxa la guddoonsiyaa dabcan abaalmarintooda maxay tahay marka miisaankaaga inta uu la egyahay oo yaanya lagu siinaa ama tomato sida darteed marka Fabian Ruiz oo miisaankiisa uu yahay 85 kilo waxa la siiyay 85 kilo oo waxa la siiyay dabcan yaanya la siiyay jawaan iyo haafis ka dhao yaanyo soo qaad tomato Gavi asaa isciil miisaankiisa yarkan waxa waaye 68 kilo ee barwaay marka asaga hal jawaan isku soo qaato oo yaanya ah macnaha dhaqanka meesha ka jira kamid tahay Isbaanishkan waa ognahay festivaliska sanadlaha qabsan waxa kamid ah bandhiga yaanyada la isku tumo yaanyada la isku tuura kamid ah marka dadkii asalka yaanyada ay u tageen tuulada ay tageen waxa la soo siinin walba dhowr jawaan yaanyo soo qaatay laakiin waa lagu miisaama intuu miisaankaaga yahay oo yaanya lagu siinaa ama tomato ka dheeri lagu ma siinaa marka waxay kamid tahay qodobada training-ka sameynaya oo Marca iyo AS soo daabacaan saaxiibayaal idinkana ra'yigiina ka dhiibta sheekooyinkaas marka saaxiibayaal ka jiraan gudaha Spain dhinacaasi waxaan aadaynaa Italian Barbariska Hilans ka saaran Inter Milan dardar gelinaysa qaadashada Couto Romero kiiskii Guardiola halkee ayuu maraa Juventus maxaa ka cusub Milan sidoo kale Madrid cishteen isla eegna sheekooyinka guud ee jaraa'idada saaran waxaan ku bilaabanaa marka waa jaraa'idka caanka ee lagu magacaabo Corriere dello Sport oo dhinacaasi ka soo baxay magaalada Roma iyo sheekooyinka ee soo daabaceen Corriere dello Sport xiran Inter Milan oo dardar gelinayso Cristiano Romero waliba Inter waajib ay ku tahay Romero inay qaataan sababta difaacyo badan ma haystaan Acerbi haduu noqon lahaa ninkii ii sheeg Steven De Vrij rag badan ay ku duqooy kooxda fasaxeen marka center back oo dab iyo hore u baahan yihiin hadii la isku helo Romero iyo Bastonia war Inter intee laga galaa waaba laba difaac oo shub inta dhaafeen oo shubyaale ah kuwaan hadda Inter isku helaan oo Romero qarsho u jaban iyo Bastonia ciyaaraya wallahi waxa waa Inter Milan wax ka soo socda caadi ma calay taxal sidoo kale Corriere dello Sport waxay ka hadleen wada xaajoodka labadan kooxood u dhaxay laakiin Tottenham Inter Milan wuu adkaan doona complicated Inter waxay ku rabaan amaah oo waajib looga dhigay inay gataan xagaaga dama 50 milyan oo euro Jadon Spencer waxay rabaan inay ka soo qaataan 40 milyan ku soo qaataan marka laba ciyaartooy muhiim waay laakiin labadaba Inter waxay ku heli karaan da Serbia ka maarmo marka haday soo qaataan Romero iyo Spencer Inter isku xoojiyaan ana waxa isla Intertan oo Champions League dabcan ka maqan yahay koobka markasta ku riyoodaan wadadii ay ku heleen calay taxal oo muuqata marka idinkana ra'yigiina ka dhiibtan sidoo kale waxay ka hadleen Corriere dello Sport aan soo qaadan karnaa qodob ku aadan saaxiibayaal Roma oo dardar gelinaysa qaadashada Antonio Nusa kadib markii Garnacho ay waayeen Summerfield ay waayeen marka macquul ma waxay taageen ilaa waa inaan soo helnaa Nusa san sheegnay jaraa'idada Ingiriiska waxay daabaceen in loolankiisa ay ku soo biireen Tottenham Hotspur iyo Arsenal oo lacag haystaan marka Roma kan hadii laga dulqaado niyad kale weyn ay ku noqonaysa sababta ee san macquul ma ciyaariyahan kasto ay doontaanbo every talent kooxdan waa weynaysa Gasperini waaba yaaban wuxuu isleeyahay intee laga soo maro isleeyahay dhinaca markii aan fiirino shabakada caanka ee soo kale Corriere dello Sport waxay ka hadleen macalinka kooxda Napoli loo dhiibay Allegri wuxuu dheesaan lagu ma socon karo waxaan u baahan oo difaaciye in la keeno sadartay marka Napoli difaaciye suuq ka raadinaysa waana sababta Bernard Bodoshli ee Chelsea kaga rabaan leeyihiin xitaa amaan ugu siiya lacag ma haysan Chelsea ama waa diideen waxay rabaan almost 25 milyan oo euro in loo gato ninka lagu magacaabo Bernard Bodoshli ee Chelsea kii ka xumaaday xitaa lacag ay dul dhigaan yab waxa waa Talyaaniga la rabaa in la gaado ugu dambeyntii aan waxa isleeyahay Chelsea ama loo qaadan laakiin waxay noqon doontaa ama la dhihi
doono kooxda kubadda cagta ee Napoli lacagta iska bixiyo dhinaca markaan fiirno Tutti Sportiva ayagana maxay sheekooyin soo daabaceen Juventus oo markaan doonteen goolaha Suzuki Juve waa nawaalaya mar waxay aad Martinez waa heli wayn Vicaria dartood xitaa safarkii Spurs oo kaga har ilaa hadda ma aysan qaadan waxayba doonteen maanta la soo daabaca goolaha Japanese-ka Suzuki oo Parma goosh u qabto World Cup ku cadara ka dhigay ayay Juventus doonteen kan ugu soo orad ma ogaada waxa 30 milyan oo euro ay dultaar marka Juve 30 milyan oo euro goolaha ma ka bixinay waa su'aasha la isweydiinay wallahi Juventus aan waa iga yaabshay maalinba meel la ku boodayaan let's wait marka aan sugano hadii 30 u qoori doonaan sidoo kale waxay soo qaateen Kolo Muani Juventus lacagtii 30 40 milyan oo euro ay gaarsiiyeen Paris in konton joogan laakiin Muani wuxuu leeyahay intaan kadib nimanyaha macquul ma aha hadiiba kooxdii 40 ee keent ilaa hal fasaxo marka Muani pressure badan saaray Paris Saint-Germain way u badan tahay marka Juve Muani soo heli doon inda bulac waqti dhaxa waa sugteen marka let's wait and sugano this case waxay u badan tahay asigana inuu dhici doono dhinaca Juventus oo mari doono maadaama in muddo la wada sugayo Muani inuu Juventus oo imaado waxay sidoo kale ka hadleen Guardiola lacag far badan oo ninkan u sheegtay 20 milyan oo euro logic ma inay xiriir kubadda cagta Talyaaniga baxshaan sidaa darteed waxa leeyahay marka Pep intuu imaan la waxa ka fududbo in Andrea Pirlo shaqada loo dhiibo sida ay jaraa'idkan Elen Tutti Sportivo sidoo kale waxay dhaheen Inter Milan oo joogdi kasta ku bixinaysa keenista Cristiano Romero si ay difaacooda u xoojistaan dhinaca kale agaasimaha kooxda Napoli Giovanni Mano wuxuu sheegay in uu sii joogi doono ninka odaga dabcan Kevin De Bruyne wuxuu dhaa meel u socdo mala si kasto si qaraar u hadlo Kevin xitaa uu dhaa kooxda waa ka tagaa weerar badan u qaad still wuxuu dhaa ciyaaraankeena waa u baahan projectiga qayb ka sii ahaan doona majalada caanka hadaan eegno Gazzetta dello Sport ayagana maxay leeyihiin Mo Pirlo then Pep Guardiola hadda Maldini iyo Leonardo realistically way ogaadeen awoodda Talyaaniga meesha jirto way baxeen Ancelotti la haddan Ancelotti xulinimay aniga Brazil aan sii jooga Guardiola la kulmay wuxuu dhawaadin imaana 20 milyan oo euro sanadkii meel ma la isaara hadii ku cilsheen dawladda Talyaaniga iyo xiriirka badda Talyaaniga sida realistically waxay dhaheen suurtagal ma lacagtaas ma bixin karno hadda waxa la markaa jaraa'idkan ay leeyihiin sida u badan tahay Pirlo shaqada la wareegi doono oo Pep ma qaban doono sida ay sheegan projectigaana waxay qaadan doontaa 8 sano ilaa 10 sano in la soo celiyo Talyaaniga maqaamka Allahna ku soo laabtaan laakiin hadii Pep loo dhiibo waxa la aaminsan within 4 years Pep Guardiola ku soo celin karo waa farqiga u dhaxeeyo waxa la markaa hadii koox Pirlo uu dhisay iyo koox Guardiola uu dhisay si jaraa'idkan ay leeyihiin kadib waxay soo qaateen ka hadleen Rafael Leao Milano ku soo laabana laakiin ilaa hadda dalab ma haysto Fenerbahce kooxda ugu dambeysay dalab keentay wali waa diiday ninkan Turki iyo Melas waxaan kala yaabaa nin isla qab weyn waa wax uu haystana male Milan waxay taageen Fenerbahce gaga aad niyo asigana wuxuu taageen Fenerbahce ma rabi marka waxaan isla ninkan aan u jeedo Milan loo sii joogi doona marka bal idinkan ra'yiina ka dhibta sheekada saas ay u egteen nin aan waxba haysan hadana balaay isla marka aragto waxa waaye kan la kugu soo dhacayo ninkan odaga waxba aanan haynin lagu magacaabo saaxiibayaal dabcan hadda ka dhawaajinay ciyaaryahankaneeto Rafael Leao waxna ma hayo balaayana waa iska dhigaa sida hadda muuqato marka sheekooyinkaas Italian Papers saaxiibayaal saaran hadaan eegno ninka odaga Romano iyo beejkiisa waxyaabo ka cusub waxa kamid oo kale Josko Gvardiol wuxuu leeyahay dabcan iyo ninkii ahay dabcan ii sheeg Jeremy Doku qandaraaska inay sameeyaan waaba lagu heshiiyay sidoo kale wuxuu dhahay hore Phil Foden heshiis dheer saxiixay waxa kale ku xig Abdulqaadir Qosanov ciyaartooyda muhiimka aasaska City ee kulligood kooxda way sii joogaan sida uu leeyahay marka Qosanov iyo Gvardiol iyo Doku saddexda heshiis saxiixayaan kuwii kalena hore u saxiixan marka Maresco ciyaartooydii uu kooxda ugu imaado kuwada ugu muhiimsan meel ay kala aadaan ma jirto sida uu ka dhawaajin marka dhamaan xidigiisa saaxiibayaal uu heesan doona sheekooyinkaas asaasan isla sidoo kale xitaa Jurgen Klopp uu ka hadlaya heshiiska wuxuu documentary waa la kala qaatay 2030 oo Jarmalka u saxiixay galinka damaanta u badantay official confirmation inuu soo baxo laakiin wuxuu leeyahay Romano Klopp to Germany here we go what after official asana projectiga la wareegay Euro 2028 u diyaarina iyo sidoo kale dabcan World Cup ka 2030 dhawaana waxa uu bilaaban doona UEFA Nations League marka Klopp waxaan leenahay welcome to Germany wuxuu aaday dhinaca qaramada aaday sidaan haduu Faransa qabtay Klopp uu qabtay Jarmalka Ancelotti Brazil uu hayo Guardiola Talyaaniga ku macana laakiin wali waa adkeynay bal aan sugana saaxiibayaal marka ugu dambeyntii saaxiibayaal barnaamijku waa dhameystay laakiin ninkii Romano haatan wuxuu xaqiijiyay Maxence Locke inuu Chelsea si rasmi ugu beeray heshiiskana here we go uu yahay 52 milyan oo pound ee Blues ku qaateen ciyaaryahankan Faransiiska difaaca dhexe ka dheelay Crystal Palace ka imaanay contractigan hore Chelsea uu la gaaray heshiiska shakhsiga 2032 iyo saxiixa waa 26 jir Alonso big profiling kale helay barnaamijka bilowgiisa waxaan ku sheegnay in heshiiskan anytime here we go uu noqon karo haatan
here we go rasmi noqdo markii dabcan la soo gaaray galinka dama maanta barnaamijka anoo gabagabaystaan arkay marka refresh dhahay page-ka Romano kana ugu dambeeyay marka in dabcan Maxence Loka to Chelsea here we go heshiiskan lagu kala baxay Chelsea another big sign in samee wala Blues waxay soo wadaan caadi ma carayd tan aniga furaha Chelsea baska waxa waa koobiya haysta haddaan arka soo karkaraya meel fiican maray waxa waa darawalka anaa badalay marka FIFA Chelsea Maxence Loka gacanta ku soo dhigteen barnaamijkan intaas nooga egyahay salaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh